Soomaalidan hadda soo diyaar uma nihin hadii la yiraahdo qof walba meesha uu joogo bishii lacagta uu qaadanayay ama soo galeysay kuwa in wax soo galin lacag intii loo qoro yaa intii bil uu ku noolaan karo ama 2 bilood ayaa qof walba account-kiisa account-na furta bangiyada ka furta 30 bisha markii la gaaro dhalow $500 ku soo dhacday ay heli doontaan guriga ma fariisanay mise soo baxay waa fariisana ma ahayna hal mar banaanka soo baxay hal mar hatta banaanka soo istaagay ummadda Soomaaliyeed gudaha kuwa ku jira iyo kuwa banaanka joogaba dhibaatadu way saameysay oo kuwa banaanka jirana meeshooda ku saameysay kuwa gudaha jirana ayagoo marka horeba si duruufaysna ayaa hadana dadku isku dhex noolaayeen banaanka wixii looga soo diri jiray waxyaabo badan oo kamid ah ayaa isbedel ay ku dhaceen marka xaaladaas cusub waxay u baahan tahay ayadana inaan la takayufno oo aan u diyaar garowno oo wixii aan isla qaban karno aan isla qabanno oo la isu naxariisto waxaan ugu soo foole bishii barakaysneed ee Ramadaan oo hadda waxa inaga xigaba wax yar maalmo ay yihiin xaaladda caalamka uu ku sugan yahay sida ay tahayna u jeedaan marka in aad Ilaahay loo bariyo Ramadaanka oo bil barakaysan oo fadli badan oo muslimiinta Ilaahay uu faraj iyo nasri uu ku siin jiray inay u noqoto bil dhibaatada Ilaahay uu kaga qaado xaalad fiican ay ku galaan inaga hadaan Soomaalina gudaha dad ku jirana arrimahan ku saabsan loo ardaas la isaga jiraayo oo digtoonida iyo iska ilaalinta wax badan waa la sameyn karaa laakiin haddana duruufteen wax badan oo inoo saamaxayn ay jirto ay kamid tahay ummadaha kale waxa u suurta galaya inay guryahoodana joogaan banaana ay u soo bixin laakiin naga Soomaaliya nahay hadii la guriyina jooga yaani wataan ma sheegayno dadkan waxay la mid yihiin shimbirta oo kale shimbir hadii la yiraahdo geedka ka soo degin oo meesha saarno raashina loo keenin cid u keenaysa aysan jirin way dhimanaysaa shimbirtu waxay samaysaa subaxdii geedka ka soo kacdaa taqdu khimasan ayadoo gaajaysan iska baxee wataruuhu bidaanan ayadoo caloosha xoogaa ku wadata ayay buushkeedii iyo godkeedii ula soo gashaa habeenkii hurdaysa meesha seexanaysa subaxdii markuu waaga bariyana halkay ka soo dhaqaaqaysa nolosheeda oo dhan shimbirtu waa sidaas kayd bakhaar meel wax uma yaalo raashin meel ma dhigato caloosheedaas un bas inagu marka muddo dheer waxaan ku suganahay sidaas oo kale dadkeenu way isku dhex nool yihiin xaga ka soo bax $1 inta ka soo hel kan xaga ka soo qaad sidaas haddii marka la kala fariisto ilaa guriyaha laga soo bixin hal fariisto haye waaye waan fariisanay maxaa u fariisanay corona daraadiisa u fariisateen oo corona muxuu nagu sameynaa corona waa dhimanaysiin hadaa uu ku dhaco gaajo haday nagu dhaco mal dhimanayna ayada ma gaajada hadii ka jawaab waa kaas marka corona iyo gaajo markay isqabtaan natiijadu waa isla dhimasho horta marka waxa rabaa inaan dadaalnana waa la rabaa dadkeena inaan ka warqabno oo duruuftooda aan xeerinana mas'uuliyad ayaa inaga saaran marka Soomaaliya ku maamuxayeen say xeeran loo xigtaa ilkana ay ku nabad galaan ayaa la rabaa inaan sameeyno oo ah bal qof walba inta dadaali karto dadaal hadda arrimo waxa socda wacyi gelino ah saan yeelna suuqyada ma la xiraaya masaajidada ma la xiraaya saan yeelna si la yeelaa kiis ilaahay hadda la yiraahdo mesela masaajidada aan xirno suuqyadina ay saa u furan yihiin markuu qofkii shaqaysto subaxdii uu soo kalaho oo suuqii iyo dhex socdo duurkii uu galay qadasuu ugu baahan yahay ayuu salaadna ugu baahan yahay muqaayidnu ka soo qadeeyo ugu baahan yahay inuu duurkii tukadana ugu baahan yahay hadii muqaayidii ay furan tahay bakhaarkii uu furan yahay hoteeladii ay furan yihiin masaajidkii la xiro macnaheedu marka muxuu noqonayaa ha tukanin cuntadiina iska cuna bakhaaradiina haydin furnaado meesha ku tukan lahaydeen way xiran tahay ma qurux badan taas ayada ah dhanka kalena seen yeelnaahay waaye waxa la dadku isu imaadaan dhibaato jirta marka si loo isugu xalin lahaa waa hal xiraale moogtay caruurta hal xiraale la isku xujeysta hal xiraale way Soomaali waxa la naga rabaa marka duruufteena marka hore gaar ay ahayd adduunku suu nool yahay uma ayna noolayn si ka duwan aan u noolayn oo horaan ku sheegay waxaan adduunyada waa ciyaar la ciyaarayo wama alxayaatu dunya illa la'ibun wa lahu wa'iyar ciyaartu sharci lagu ciyaaray leedahay kubaddu hadii ay garoonka xariiqinta dheer ay dhinaca banaanka uga baxdo foora la yiraahdaa inta xariiqimaha cad gudaha ugu jirta inta kubadda lagu ciyaarayo intaas sharciga ciyaartu ay socotaa hadii laakiin dhinaca foorada labada dhinac banoonigu u baxo
waxaa leeyahay Frembiga leena banooniga soo bax inaga Soomaaliyeena 30 sano ka hor uu banoonigeena banaanka u bax garoonkiiba kuma jirna banaankaas ordayna xagaan ordayna garoonkii ciyaarta lagu ciyaari lahaaba waan ka baxsanaa laakiin haddana waxaan la qabsanay sida garoonkii banaankiisa loogu dheelo bugle aan ku dheelin haddaan rabno banooni buqsan oo aan aariyeysnayn aan dheelin haddaan rabno saasa ciyaartii aan ka dhiganay corona imaaday oo dadkii gudaha ku jiray ee ciyaartu ay u habaysneed ayuu corona ku dhacay ciyaartoydii gudaha ku jirtay adduunkii kala waay corona ku dhacay waxay yiraahdeen ciyaarta aan joojino qof walbana meeshiisa team walba xagga goolkiisa ha ku ururo laakiin yaan isa soo weerarin banooniga la joojiyay bas kooxdana goolkeeda fariisatay xilliga corona oo inaga baxo ayaan ciyaartii dib u bilaabi doonaa laakiin inta corona jiro ciyaarta ha la joojiyo inagoo bugleedii xagga loo ordayna ako waxayna leeyihiin ciyaarta joojiye maxaan joojinayna marka hore ma ciyaarina anaga bugleeyaan dheelayna anaga si aan ku joojino oo ku fariisano male laakiin ciyaartooydaas kale waxay ku joogaan dawladooda waxay leedahay wixii aad cuni lahaydeen iyo mushaarkii aad qaadan lahaydeen idinkoo guryihiina ku jira ayaad ku qaadanaysiin dawladana mas'uulka ah khasnadihii lacagaha ugu jiray fasaxday jeegag badan bangiyada lagu shubay gurigiina iska jooga lacagtu way idin soo dhacaysaa corona intuu ka dhamaanayo dawladda idin biilaysa ha soo bixina waa war la yaqaano innaga soo gaarnay marka adduunka maxaan ka maqalnay gurihiina fariista ha soo bixina annaga maxaan dhaynaa marka gurihiina fariista ha soo bixina haddaan dhahno kuwaas kii saas yiri raashinka u keenayay oo lacagta siinayay Soomaalidan hadda soo diyaar uma nihin haddii la yiraahdo qof walba meesha uu joogo bishii lacagta uu qaadanayay ama soo galeysay kuwa in wax soo galin lacag intii loo qoro yaa intii bil uu ku noolaan karo ama 2 bilood ayaa qof walba account-kiisa account furta bangiyada ka furta 30 bisha markii la gaaro dhalow $500 ku soo dhacday ay heli doontaan guriga ma fariisanayso soo baxay waa fariisana ma ahayna hal mar banaanka ma soo baxay hal mar hatta banaanka ma soo istaagay laakiin waxba kuma ku soo dhacay gurigaaga fadhi saan ku fadhina gaaja meesha jirtay nabi sallallahu alayhi wasallam 6 saac oo duurkii kuleyl ah yu banaanka u soo baxay markaas banaanka wuxuu ugu imaaday Abu Bakar iyo Umar oo banaanka taagan markaas wuxuu ku ri ma akhrajakum hadhihi saa'a war xilgan maxay idin soo bixiyay markaas waxay dhahan al-juu' ya rasuulallah gaajaan guriga la joog weynay markaas wuxuu ri aniga naftirkayga wixii idin soo bixiyay ayaa banaanka ay keenay bal ina keena guriga Abu Ayyub al-Ansari aan aadna hadan wax ka soo helayno Abu Ayyub gurigiisa aadeen asagoo maqanay tageen xaaskiisa joogtay markay aragtay nabiga iyo labadiisii saaxiib oo la socda aad ay ugu faraxday marti fiican ay imaatay tiri way fariisisay markaas ay dhana away Abu Ayyub waxay dhahay biyo macaan noo raadiyo oo noo maqayay markaas intay fariisisay ayay sugeen intuu ka imaanay wuu imaaday markuu imaaday uu arkay ku farxay maanta yaa iga marti fiican yoo timirna uu keenay neef ari oo u xirnaana inuu soo gowraco oo ku marti soorana uu guda galay timirtii intay si cunayeen neefkii ayuu soo gowracay uu soo hagaajiyay nabiga iyo labadiisii saaxiib ayuu u keenay markay cuneen hilibkii yaa nabi wuxuu ku yiri gaajo ayaad gurigiina uga soo baxdeen maanta haddana idinku nicmadan ayaad asiibteen oo hesheen la tus'alunna yawma idin 'anil na'im maalinta qiyaamaha nicmadan waa la idin weydiin doonaa wuxuu yaro hilib markii intuu soo qaaday nabigu wuxuu jeclaa gabadhiisa Faatima uu og yahay duruufta guryaha ka jirta iyo gaajada jirta bas ina loo soo sameeyay markii oo hilibkii ah Faatima loo geeyulaa marka inaga xaaladeenu waxay ku sugan tahay xaaladaas oo kale guriyihiina maxay idin ka soo bixiyay hadii la yiraahdo dadkan oo dhan waxay dhahaan waxa naga soo bixiyay al-juu' baahi naga soo bixisay marka hadii baahida aan la dabooli kareynin si dadka amar loo siiyo oo fadhiista loo dhaho ma jirto waxa ku soo hartay masaajidada horta way kala duwan tahay masaajidka iyo suuqa iyo shaqadiisu si waxay kala duwan tahay suuqu waxoogaa waa la kala durki karaa oo hawo furan ayaa lagu jiraa oo waxoogaa dhinacaas inay ka duwan tahay way waqtahay midda kale masaajidka arinta lagu sameynaayo xaqunnaas ma aha dad iska ma laha waa xaqullaahi ilaahay baa iska leh salaada jamaacada intu kanayno ilaahay baa iska leh ilaahay xaqiisa iyo dadka xaqoodana way kala duwan yihiin caruur inay biil ka sugayso oo biil laga rabo kuma suurta gelinayso inaad guriga joogtid
maxaa ilaa ilmaa ku sugaaya laakiin salaada jamaacada haddii la yidhaahdo roob baa da-aaya oo lama imaan karo maxaa la ogol yahay in gurigaaga ay isaga tukato maxaa yeelay xadiis anaga wuxuu ku sal ly slam qofku hadduu xanuunsado ama uu safro wixii uu samayn jiray markii uu fayoobaa ama uu nagaa ayuu ilaahay siinayaa xaaladda markay caadiga inoo ahayd inaan masaajid ku tukan jirnay oo jamaacada aan jecelnahay ilahay wuu inoo ogyahay oo aad aan u jecelnahay masaajidka iyo jamaacadiisa dhibaataa imaatay cudurraha laga cabsaday inay ku dhex faafaan soo talo ma imaan karta la dhahayo ilaahay xanuunkan jira ilaa wa ilaa masaajidka imaada muu ina dhahay mise hadday duruuf imaato wuxuu inoo ogol yahay asagoo weliba ina siinaayo fadligaan masaajidka ka heli lahayn inaan cudurdaar ahaan u maqnaano waa la ogol yahay saasaa marka isbuuc horena waan ku celinay haddana waan kusoo celinayna waxay tahay inta xaaladdan lagu jiro qofkii cabsi iyo arrimahan ku saabsan cudurkan ama adoon ogeyn dadka aad ku tallaashaa ama adi aad soo qaadaa cabsidaas qofkay ku jirto wuxuu u fasaxan yahay inuu gurigiisa ku tukado oo dadkii ay kala yaraadaan ajirkan asagoo gurigiisii ku tukaday ayaa la siinayaa hadda markaan khudbada usoo socday ayaa wiil dhallinyaraa telefoon ii soo diray wuxuu leeyahay maalmahan karoonihii uu soo bataa laleeyahay dad oo maalmahan waxbaa dhintayna way soo bilaabatay dad waxaan inaan la kulmay oo dadka aan uga shakisanay arrintaas ayaa jirtee haddaan guriga iskaga tukado maanta oon jumcada imaanin ka waran khayr allah ku siiya meeshaada joogaan ku ha imaanin meeshaada ku tuko adna dadka ha tallaalin adna yaan lagu tallaalin shaki ma jiraan meeshaada ku tuko waad mahadsan tahay marka saas oo kale markay noqoto in saa la yeelo way bannaan tahay oo waa la yeeli karaa marka diinteenu waa diin waaqica dadkana ka jawaabaysa duruuftana qadarinaysa يعني دين وحلا واقعي واقعي ما هي تاي إن وحال إسكوجا استاجا لجوتو كذا صلاة فرل كان مثلا هداد فرل كنت كم ويس استاجا فرل كنت كن كرتا هداد فرل كنت كم ويدو جيف كنت كن كرتا وهكذا صلاة واساس مرك هدي مرك عن سوء ما كرنا وسوء ما نينا هدي أين سوء ما كرنا ومشكلة جرتنا أنت مشكلة لا سي جرتو دين تنو حي وقش هاي إن جماعة هذا الإسكجوجيو وتصال عن مثلا دين تنو سي نفط بين آدم كوي على الناس وحي تاي haddii qof intii la qabtay yiraahdo gaal noqo haddii kale waa lagu dilaa naftaadu way baxee haddaad gaal noqon weyso diintu maxay ogashahay war gaalaan noqonahay maxaad iga rabtaa leedhe waa sidii uu sameeyey camaar binu yaasir camaara intay qabteen kuwii kufaaru quraysh yay cadaadiyeen markaas waxay ku yidhaahdeen nabigana cay ilaahayna ku kufri sidii ayuu sameeyey way sii daayeen nabigu uu tegey sal alla alay slam wuxuu rasuulka ilaahayow maanta tay ugu dhacday saasay ii galeen nimankii quraysh ahaa markaas wuxuu yiri qalbigaaga maxaa dareemaysaa markaas wuxuu yiri iimaanka inuu igu xasilan yahay oo ilaahay rasuulkiisa aan jeclahay markaas wuxuu ku yiri waxba ka dhimayse bariina hadii ay saas oo kale ku galaan sidii hadda aad yeeshay oo kale yeel in aadu fuud haday kugu celiyaan ciqaabkii adna warkii aad uga fakan lahayd dheh aayadana soo degtay illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah qofkii lagu qasbo qasabkaas wuxuu ku yiri waxba loo ma haysto qalbigiisu haduu iimaanku ku xasilayay marka inaan salaada jamaacada tukanayno oo aan jecelnahay waan ognahay hadii laakiin khoof uu imaado cabsi haday timaado yani waa okay maxaan sameeynaa marka muqaana iska gaarina waxa dheena jumcada aan la imaanin wali taas ma dhihi karno sababtoo ah yani go'aan gaaritaanka yani go'aankaas sheegistiisa mas'uuliyad waxay u baahan tahay yani maamuleed innagana sharcigeena waa iska waxaan nahay dad macna rayid maamul منهن إنك شعبنا يعني شعب كاسي مركا قوان جودة ومدة ولا سامينايا ولو ما جاري كرو إلا ضدك ولا أنت يسقط وفقان سي رسمي أنت سيدا لو جارو لكن محل سمين كرا هيو حن سمين كرا نوايا عن كريران أو ينمسات كسب حين دان ضدكم ميلايان قف السؤال ما هبل عن مقنعنا هي هذه صاحب كلا تجا هل سي لو ما أنا مسات كسب حسمالك مركا إلهي أنس كبرينه qofkii duruufaha sadda aan sheegnay ay la soo gudboonaadaan ama shaki iska qaba ama cabsi qabana gurigiisa iska joogo iska tukada ajirkiisana uu leeyahay insha Allah waa shaciiratu min shacair al-islam yani jumcada iyo jamaacadka la ogaayana waa wax weyn oo islaamka meel weyn ay uga taala laakiin haddana duruuf haday imaato islaamku duruufta uu qadariya insha Allah ta'ala bal wada tashi iyo culimo iyo intii laga wada tasho ayaa saan yeelahan iyo ummadan duruufta haysata dadka ahlul hal wal aqd la yiraahdo u baahan inay iska wada wax iska yiraahdaan kadibna go'aan laga bogaaro inta taa laga gaarayo قرآن كنا نخسنه إلهي سبحانه وتعالى أمبرنا ومدى الإسلام كأهل دبعته أي هيستي إن ذكر يعني صومالي أن بناك جرتنا وكانوا إنه مساعد إنه أنجوجنه
فإذا أبوجرته واقع جنازين كانوا تكونينا وأن دعينا لا يقوم سورة جلس إن الجنازة ماشي كنت كذا مساعدوا يكحرين إننا مساعدوا ينوفرين مركب ظروفتي أن خاص كأيام مالو بين جالس عميسي لكن إن شاء الله تعالى سيد التوفيق يكون جرتنا مركب لقيت الشغل أيام قوان كذا ليه جارايا أنت كه رئيسة يعني إلهي سبحانه وتعالى أذو برينه يعني أنت لا يرين كانت الجمعات كانت تاسع اللي قلت لي مركب لكن الحمد لله إلى هذا حالة إنه يدقنتهاي إلهي سبحانه وتعالى إنه وسق دار مايو dhibkii aan ku jirnay 30 sano ee ummadeena Soomaaliyeed say suuleynaysa iyo dhibaatadii iyo karoonahan oo dadka dilayay saas ay tahay annaga waxa waa karoonahani inaan horay u qaadanay oo aan horay u rafaadnay ilaahay naxariistiisa inta aan ku soo gaarnay ayaan ilaahay waxaan ku weydiisanaynaa dacfigeena ilaahay inuu noogu naxariisto waxaynan awood u lahayn ay ilaahay inuu korko ina saarin wala tuhammilna waxaan ku ducaysana rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhdana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وصلى الله على سيدنا محمد